السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu sameyneynaa roodhi aad iyo aad u macaan, jilicsan, kaaliska araga aad ka heli doontid. waxaan kaa rajeynayaa inaad tijaabin doontid roodhidan qiimaha badan. inta aanaynu guda gelin, please subscribe isaar. roodhidii waxaanu ka bilaabeynaa juuska cirka. waa biyaha hal koob baynu ku shubnay oo juuska cirka koob kale ayaynu ku shubaynaa. haddana haddii ilaahay ka dhigo koobkii kalena waa inaga ku darnay. waxaynu kaloo ku dari doonaa fixisada iistida ama fixisada 3 malqaacadood oo kuwa shaaha lagu cabaa biidnillaah. inta malqaacada shaaha lagu walaaqdo ay qaado kaleeto ayay qaadaa. malqaacada shaaha sonkorta lagu walaaqdo ayaan ka wadaa. afwan 2 xabo ukun beed ayaynu soo jabsanay oo aynu ku daraynaa. roodhidani waxaan ku waa roodhi nafaqaysan, jilicsan, macaan, kaala iska araga. waxaan ku uri dahamoogaan baan ku uri inaad caawaba bilowdo. waxa weeye caanihii budada ahaa. anigu waxaan isticmaalayaa caanaha niidada laakiin adigu waxaad isticmaali kartaa ayi caana aad haysatid. caana kasta oo niida waxaan leeyahay bulvar ama boolar ama budo ayaad isticmaali kartaa. 5 malqaacadood oo kuwa cuntada lagu cuno ayaan ku daraynaa caanaha. waynu isku yara walaaqaynaa. haddii aanad haysanin caanaha budada caanaha caadiga kale xitaa waad ku isticmaali kartaa. laakiin caanahana ayaa naasiba roodhida noocana. subag baynu soo diyaarsanaynaa. 50 gram iyo 50 gram baanu soo jaray. waynu jarjaraynaa kadibna waynu ku dhex guraynaa inaga oo aan dhalaalinin. haddii aanad haysan subagan adag ka caadiga kale baad ku isticmaali kartaa, laakiin wuxuun baad qiyaastun baad ka yarayn kartaa. hadda waa 100 gram. 100 gram waa koob barhkii. marka koob barhkii waad kasii yaraynaysaa. milixdii baan ku darsanaynaa. malqaacada shaaha oo wax yar dhiman haddii ilaahay ka dhigo. hamoogaan roodhidan baan ku aad bay u macaantay. maasha allah maasha allah maasha allah. waxaan ku idhi haddaad dhadhamin lahayd roodhi kaleba maad rabteen. dukaanka roodhi kamaad soo iibsateen. waqtigan weliba waxaan ku idhi cudurkan faafaya laga baqanayo roodhiyaha dukaanka aan iibsanayna 4 malqaacadood oo kuwa cuntada ayaynu sonkor baynu ku daraynaa. haddana maasha allah weli sheekadu way socotaa. daqiiqdii oo madaxweynihii roodhida ayaynu hadda ku bilownay. hal koob baynu ku shubnay. koobkii labaad baynu ku shubaynaa. koobkii saddexaad baynu ku shubaynaa. kadib waxaynu sameynaynaa waynu isku yara walaaqaynaa haddii ilaahay ka dhigo. hadda waxaynu arkaynaa inay jilicsan tahay oo ay daqiiq intaa kasii badan u baahan tahay ama bur. kadib koob kale ayaynu soo cabiranaynaa haddii ilaahay ka dhigo. koobka haafkiisa ayaynu ku shubaynaa. haafka kalena waynu safe garaysanaynaa. hadhow baynu isticmaali doonaa insha allah. waad arki doontaa sababtaynu isticmaalayno. halkan ayaan ku isticmaalaynaa. hadda miiskaan saarnay. gogol baan uga dhignay. xashkii aan soo xashnay. kadib waxaan rabnaa inaan gamcaha xoog ugu xashino. madiimadii baan soo diyaarinay. xashkan aan xashinay aan ku fiixin lahayn saliid yar baan marinaynaa si aanay ugu dhegin xashka. laakiin xashkan aad soo xashteen
haddii ilaahay ka dhigo amaad soo rafaajisay waa inaad ugu yaraan 10 daqiiqo gacanta kusoo xashto haddii kaleeto sidii la rabay natiijadii la rabay ma laga helayo. haddaad mashiin haysatana mashiinka lagu xesho waxaad ku samayn kartaa 5 daqiiqo. bac baynu ku xidhaynaa. hadda bacdi baynu ku xidhnay kadib waxaynu gelinaynaa meel diiran baynu dhigaynaa si ay u faxdo oo waliba ay xoog ugu faxdo saacad ilaa saacad iyo badh. sidanay usoo faxday maasha Allah double bay noqotay intii ay ahayd in leeg ayaa ku darsantay. kadib waxaynu samayn doonaa hadda waxaynu soo diyaarsanaynaa jiingadii la saari lahaa ee la gelin lahaa ofinka. xashka laftiisana waxaynu ka dhigaynaa 2 qaybood oo si ay noogu fududaato inaynu kuuskuus u goosano haddii ilaahay ka dhigo. sidan aan ka dhignay dhexdana waan ka yara sarsarnay sidoo waliba inoogu sii fududaado kuuska inuu goosanayna haddii ilaahay ilaahdo. sidan aan usoo kuuskuusnay anigu waxaan rabaa gacaha inaan ku yara ballaadhiyo xoog bay u jilicsan tahay sababtoo si fiican baan usoo xashay. haddaad adigu rabtid kuuskuuskaaga u daydinaysaa laakiinse waa inaad markaas jiingadiiba wax fara badan aad ku wada rido si isugu dhawaadaan haddii ilaahay ilaahdo. hadda tuwaal baan saarnay jiingadan waxaan doonaynaa inay soo faxdo haddii ilaahay ka dhigo oo xoog u faxdo. waqti kale inuu daynaynaa halkaas. xabad ukuna baan hadda soo qaadanay in yaroo biyo ah baan ku daraynaa kadibna waxaynu ku rinjiyeyn doonaa haddii ilaahay ka dhigo dee roodhidii alaabtaynu wadnay. hadda sheekadu waa iska gebagebo haddii ilaahay ka dhigo. haddaad fiidiyogan ka heshay ha ilaawin inaad like saarto inaad sii share garayso. haddii aanad hore iigu jirin subscribe ii saar haddii ilaahay ka dhigo. hadda waxaynu ku baalashaynaynaa ama ku rinjiyeynaynaa waa ukuntii aynu soo qasanay beedkii iyadoo dhan waynu wada marin doonaa. 10 daqiiqo ayay ku jirtay halkii jiingadba 2 jiingadood baan ka dhigay marka halkii jiingadba 10 daqiiqo ilaa 12 daqiiqo. digriigan oo isticmaalay dabkana waxay ahayd 200 marka kulli waad ilaalinaysaa markaad aragtay inay si fiican u soo casaatay waad ka soo saaraysaa hadday xitaa 12 daqiiqo ka horeyso. marka horena ofinka wayna sii kululeysatid haddii ilaahay ka dhigo. aad bay u jilicsan tahay u macaantay kaale iska arag maasha Allah maasha Allah. suqaarkaad ku cuni kartaa subag baad ku cuni kartaa muqumaad baad ku cuni kartaa iyo shaah. war waxaan ku iri waxay diidaysa male bahashani waxba ma diida la yiraahdaa maasha Allah maasha Allah maasha Allah. dee ha moogaanina inaad samaystaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.